kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah duleedka magaalada Muqdisho 7 qof oo rakaab oo xigta ayaa ku dhintay qarax miino oo haleelay baabuur bas ah oo ay la socdeen. dibadbaxyo rabshado wata oo mar kale ruuxay magaalooyinka Mareykanka. masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa iyo masaajido ku yaala Sacuudiga iyo Turkiga oo dib loo furay kadib markii toddobaadyo ay u xirnaayeen cudurka COVID-19 dartiis. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. aan ku bilownay ugu yaraan 7 qof ayaa maanta ku dhintay qarax miina oo haleelay gaari caasi ah oo ay saarnaayeen kaasi oo marayay wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye. wariyaha VOA magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray. gaarigan oo ay saaraayeen dad xigta ah ayaa saaki ka anbabaxay magaalada Muqdisho waxaana uu ku sii jeeday degmada Wallaweyn halkaas ay qorsheynayeen inay kaga qayb galaan tacsi ay dhiganayeen dad ehelkooda ah. waxaana markii ay marayeen meel ku dhow isbitaalka Xaawo Cabdi ay la kulmeen qaraxan oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso taasoo sababtay geerida 7 ruux iyo 8 kale ee dhaawaca ah. afkiro walaalkay waay maxamed waay in badan baa wadadan ku shaqaysan jiray waa BLA waay waxa ku shaqayn jiray xamar iyo Wallaweyn ayaa ku shaqaysan jiray subax kasta oo bixi jiray. hadda saaka waa 12 access control afgooy ka baxay wuxuu u socday Wallaweyn baa u socday. hadda qadar tarbiya ku timid gaari soo socdaya miina la kacday qarax baa ku dhacay gaarigi dhamaan waa burbur amtii saarneed waa burburtay. bal alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan oo ilaahay xamdigiisa waay ilaahay lagu xamdiyaa fiican dad islaam baan ahay muslimiin ah mar qadar baa aqoonsanay qadar biya ku dhacday. wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ayaa inta badan waxaa ka dhaca qaraxyo noocyo kala duwan leh kuwaas oo khasaare dhimasho iyo dhaawac leh u geysta dadka rayidka ee wadadaasi isticmaala. mana jirto cid sheegata mas'uuliyadda qaraxyada noocan oo kala ah. Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho. barnaamijyo kale oo rabshado wata ayaa mar kale habeenkii xalay ahaa gilgilay magaalooyin badan oo ku yaala wadanka Mareykanka. dadka dhigaya dibadbaxyada ayaa iska indha tiray bandow lagu soo rogay in ka badan 30 magaalo oo wadanka Mareykanka ah. Minneapolis, Seattle ila iyo New York 10,000 oo dibadbaxayaal ah ayaa wadooyinka buuxiyay Sabtidii iyaga oo dalbanaya in ciqaab adag la duldhigo kuwii ka dambeeyay dilka George Floyd oo ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka. askariga dilka loo eedeeyay Eric Chauvin oo kamid ahaa booliiska magaalada Minneapolis ayaa lagu soo eedeeyay dil heerka darajada 3. magaalada Minneapolis habeenkii shanaad oo xiriira ayay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado iyo qalalaase wata. gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa ballan qaaday in awood buuxda loo adeegsan doono soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta. deegaanka Cedar ee magaalada Minneapolis oo ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa kamid ahaa meelihii xalay sida weyn looga cabsanayay in ay soo weeraraan kooxaha qaska wada. maxamuud nuur waxa uu kamid yahay xildhibaanada gobolka Minnesota waxaana laga doortaa deegaankaasi. goor dhaweyd ayuu qadka Skype-ka igu waramay. waa ku salaamay xalaykii maaragtay jawiga aad buu u fiicnaa xaaladda aad bay u kala degneed inkasta oo dad oo rabsho u socday oo maaragtay si fiican u adeegeen ciidamada qalabka sita iyo booliiskii iyo askarta oo u shaqeyso gobolka. dadkaasaytana maaragtay bandowgii lagu soo rogay markii hore ay diideen inay maaragtay wadooyinka ay ka baxaan markii dambena maaragtay wadooyinka si xoog maaragtay loogu kala fogeeyey dad qaarna oo la xiray. xaaladda aad iyo aad bay u degneed waa ka duuneed habeenada hore oo dhibaatada weyn oo soo gaartay magaalada Minneapolis. wax khasaaraha iyo goobo la gubay miyaa jiray xalay? dabcan sidii hore haddii aad u fiirisid wax goobo la gubay maaragtay lama arag. wax yaroo dab yar oo meelo ka shaqay waa jiraan hase yeeshee waxyaabo oo hanti weyn oo la gubay meel weyn la gubay xalaykii nooma muuqato. dadkina waxaa u badnaa dad oo maaragtay ka yimi gobollo kale oo taariikhdooda maaragtay baabuurta ka fujistay oo dad cusuriyiin baa lagu tilmaamay. xalayta dhan
amniga oo dhan waxay maaragtay bursanayaan qoladaas dhowr qof baa laga qabtay sidaas darteed waxaa waaye nabadgelyada dadaal dheeraad bay galeen governorkana maaragtay markii hore wuxuu lahaa dadka kulli guryaha galaan hase yeeshee shicibkii baa maaragtay banaanada usoo baxay oo ilaashanaya hantidooda oo ilaashanaya xaafadaha. waa garta ugu dambeyntii waxaad tahay mas-uul ka tirsan golaha baarlamaanka ee gobolka gobolkii wuxuu galay xaalad degdega dhibaato fara badan iyo khasaare ayaa dhacay ujeedaduna waxay ahayd in markii hore dibadbaxyadu u bilowdeen in ninkii madowga ahaa la dilay cadaalad loo helo walow la soo xiray mid ka mid a askartii haddana saddexdii kale askari ayaa la dalbanaya oo dadku dalbanayaan in la soo xiro qalalaasahan hadda socdo oo meelo fara badan oo waddanka Mareykanka ku fidaya mas-uuliyiintiinu maxaad doonaysaan oo tallaabo aad qaadaysaan si arrintan xal loogu helo? runtii George Floyd oo ah nin madow oo lagu dilay magaalada Minneapolis ma aha qofkii ugu horeeyo uma malayn noqon doono qofka ugu dambeeya waxaa waddankan ama gobolkan iyo magaaladan ka jira cusubnimo badan baa ka jirta dadkina ma aragtay xagga dhaqaalaha noqoto meel kasta ha noqoto haddii la fiirsho dadka danta yar oo gobolka Minnesota degan cadaalad ma helaan dhibaato badan bay kala kulmaan wixii ma aragtay fursadihii oo dhanna wax soo gaaray baa iska yar ha noqoto waxbarashada ma aragtay ardayda ku liitaan soo waxaan oran lahaa saddexdii oo weli ma aragtay lasoo xirin waxay keenaysaa buuq oo joogto ah inkastoo aan dadkan ka codsanayno inay hooshii ma aragtay mudaharaad oo nabadgelyo leh oo buuq lahayn oo hanti ma aragtay la bilaqisanayn waxba la gubaynin taas sharciga baa ma aragtay dadka siinaya inay sameeyaan waxaan oranayaa hooshii taasayta dadka waa loo ogol yahay hase yeeshee lama ogolo ma aragtay buuq oo meel wax ma aragtay ka dhalanayso taasay dadka waxaan leeyahay arrintii ku dhacday George Floyd waxaan ka codsanaynaa gobernatoraha in uu case-ka kusoo wareejiyo xerilaalyaha gobolka Minnesota Keith Ellison maadaama ma aragtay kalsoonidii dadka ka dhamaatay oo xerilaalyaha degmada Hennepin uu ma aragtay markii hore kala hadlay gadaal dambena soo xiray askarigii dilay George Floyd sharciyo badan oo xakamanayso booliiska dadkii waxaa ka baxay ma aragtay inay aaminaan booliiska Minneapolis taasaytana waxaan ka codsanay duqa magaalada Minneapolis iyo city councilkaba inay si degdeg ah la bedelo booliiska ka shaqeynayo xaafadaheena si loo helo nabadgelyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota oo qadka Skype-ka igu waramayay dhinaca kale magaalada Minneapolis ayaa dad isxilqaamay oo Soomaaliduna ay ku jirto waxa ay shalayto ilaa iyo saaka wadaan olole ay ku nadiifinayaan goobihii lagu burburiyay banaanbaxyadii rabshadaha watay ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay magaalada inkastoo qaar ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigaya ay burbur hantiyeed iyo qalalaase abuureen haddana dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalooyinka mataanaha waxay si mutadawacnimo u nadiifinayaan goobihii la gubay iyo kuwii la jabsaday boqolaal dad ah oo watay qalabka wax lagu nadiifiyo ayaana ka shaqeynaya inay dib u soo celiyaan bilicda magaalada halka kuwa kale ay dadka u qaybinayaan cunno iyo cabitaan Soomaalida oo kamid ah dadka uu burburku soo gaaray hantidooda ayaana kamid ah kooxihii is-abaabulay ee howlaha nadaafadda ka qayb qaadanayay abo inta waxaan deganahay dhowr iyo 20 sano meeshan waa sirigeygii waa second home oo aan kaga imid waddankaygii soo maadaama inta aad degantahay carruurna aan ku dhalnay kole ciyaalkeenu birta waxaan way arkayaan waa inaan xaaqnaa oo ka qayb qaadanaa oo nadiifinaa marka meeshan waa degana bari ka maal bangigan lacag soo doonayna bari ka maal halkaan aan imaadnaa marka xageen kale aadna dukaamadii wixii aan ka adeegan jirnay hadii la destroy lagu sameeyay marka waxa waay ina isxilqaanta adigu qof waalidaata waqti yar daaysid ka qayb qaado waa sirigaaga waa degan tahay ciyaal kuugu dhashay halkani waa bangiga Wells Fargo oo ku yaala bartamaha deegaan ay ku badan yihiin dadka Soomaaliyeed lana gubay habeenkii Sabtida waxaana ka socda banaanbax nabadeed oo George Floyd loogu raadinayo cadaalad iyo olole bangiga lagu nadiifinayo dadka ayaana hal goob ka wada diraya dhowr fariimood oo yoolkoodu yahay dib u hagaajin cadaalad raadin iyo ka hortagga kuwa wax burburinaya oo saraakiisha gobolku ay ku sheegeen in badankood ay ka yimaadeen gobollo kale waxaanu ku jiraa maanta dhulkii xalay la jajabiyay kaliin garayntiisii waxaanu kaleeto ku jiraa inaanu raadino cadaalad u raadino dhibkii dhacay oo mudaharaadkii baan isagana ku jiraa
waxaan kale oo ku jiraa oo aan degniin aan halkan iyo baaq uga daraynaa dadka wax magaratada oo dhibka iyo burburinta iyo hantida boobaya iyagoo ku gabanaya cadaalad raadin arrintaasna waa ka digaynaa in gacan bira taas lagu qabtaan u baahanahay dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa khasaaraha ugu badan gaarsiiyay wadada Lake Street oo badi ganacsiyada ku yaala ay leeyihiin bulshooyinka laga tirada badan yahay Soomaalida ayaa qabta inay kaalin weyn ku leeyihiin horumarka iyo kobaca goobaha ganacsiga ee wadadan ku teedsan sidaa darteedna ay muhiim tahay in jaaliyadu ay ka qayb qaataan wax dhisidda xaafadan waa xaafad aan anagu wax ka dhisnay as immigrant community iyo Soomaali hadaynu nahay marka inaynu foodada aynu horta aynan wax ka qaadanin waa wax muhiim ah inaynu hadda oo nala foodeeyo dhibaato badan xaafadan lagu sameeyo businessadan yaashin la dhaawacay inaynu garab istaagno oo ma garatay anaga waxaan u soo wada baxnay hadda aanu wax ka nadiifino aanu wax ka dhisno magaaladeena aanu jeclayn laakiin arintan dhacdo waa arin xanuun badan waana ka qayb qaadanaynaa ma garatay protestiga iyo inaynu u istaagno xaq dhinaciisa dibadbaxayaasha ayaa wali wada dalabkoodii ahaa in xabsiga loo taxaabo saddexdii kale ee askari ee gacanta ka geysay dilkii George Floyd walow xabsiga la dhigay Derek Chauvin oo isagu ahaa ninkii luqunta jilibka kaga hayay George Floyd oo dhulka yaala tirada dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ayaa haatan waxay kor u dhaaftay in ka badan 6 milyan oo qof dalka Brazil ayaana haatan waxa uu noqday dalka dadka ugu badan cudurkaasi uu haatan halista ku hayo xilli dalalka kale ee dunida ay intooda badan ka soo kabanayaan raadadkii xumaa ee cudurka COVID-19 uga tagay ayay wadamada qaaradda Latin America hadda wajahayaan heerkii ugu sarreeyay cudurkan Brazil kiisaska ilaa iyo hadda la xaqiijiyay waxay gaarayaan ku dhawaad 500,000 oo qof oo xanuunku soo ritay waa dalka labaad ee ugu badan coronavirus marka laga yimaado Mareykanka dadka ugu dhintay wadankaasi ayaa gaaraya ilaa iyo 30,000 oo qof guud ahaan dunida waxa xanuunkani ugu dhintay dad gaaraya ku dhawaad 370,000 oo qof ugu dambeyntiina masaajidka Al-Aqsa waa masaajidka saddexaad ee ugu muhiimsan islaamka marka laga yimaado Makka iyo Madiina ayaa maanta waxada mar kale dib loo furay kadib markii muddo uu xirnaa cudurka COVID-19 dartiis tobanaan muslimiina oo afku u daboolnaa ayaa saakay aroortii hore loo ogolaaday masaajidka iyagoo ku tukaday salaada subax jamaacada oo ku qeylinaysay Allahu Akbar waanu ilaalin doonaa Al-Aqsa ayaa soo dhoobtay albaabada alwaaxa ka samaysan ee masaajidka halkaasi oo ku soo dhaweeyay agaasimaha masaajidka Umar Al-Kiswani dhanka kale Saudi Arabia ayaa maanta albaabada u furtay masaajida wadanka oo cudurka COVID-19 u xirnaa tan iyo bishii Maarso ee sanadkan kadib markii xukuumaddu dabcisay xayiraadda lagu xakamaynayo cudurka COVID-19 Turkiguna waxa uu jimcihii shalay ogolaaday in dadku ay masaajida tagaan kadib markii la furay masaajida qaarkood waatay daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qubanaha maanta intaynu mar kale dib u kulmi doono waa Maxamuud Mascad iyo dhammaan baabahada VOA oo idin leh sida iyo nooli kulanta